golaha gurtida Somaliland ayaa maanta si rasmi ah u soo afmeeray kalfadhigii 9aad ee golaha kaas oo lagu tilmaamay mid midho dhala oo ay mudanayaashu ku qabteen shaqooyin waaweyn isla markaana dood qoto dheer ka yeesheen ajandayaal badan oo taabanayay nolosha bulshada kalfadhigan ayaa diiradda lagu saaray arrimo aasaasi u ah horumarka dalka kuwaas oo ay ka mid yihiin biyaha caafimaadka waxbarashada kalluunka tamarta xoolaha deegaanka dhaqaalaha beeraha xakamaynta sixir bararka iyo garsoorka fadhiga soo xiritaanka oo uu shir gudoominayay Saleebaan Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha gurtida ayaa lagu dhageystay warbixino kala duwan oo ay soo bandhigeen gudiyada arrimaha bulshada gudaha dhaqaalaha arrimaha dibadda iyo garsoorka gabagabadii gudoomiyaha golaha gurtida ayaa ku dhawaaqay fasax 2 bilood oo u dhaxeeya labada kalfadhi iyadoo mudanayaashu dib ku soo laaban doonaan golaha 15 bisha 8aad hadii Allah awood leh qadro waxaanu mudanayaasha kula dardaarmay in ay si dhow ula socdaan xaaladaha deegaanada ay matalaan inta lagu jiro fasax xildhibaano guddiyaashii hawshii ay ku maqnaayeen yaa soo gudbiyeen mar haddaad soo wada gudbisa waynu akhrinaynaa arrimaha bulshada ugu horeeya arrimaha bulshada guddiyaashu aad bay ugu mahadsan yihiin warbixinta ay soo jeediyeen aad baa u mahadsantihiin waxaan filayaa kalfadhigii 9aad inuu inoo dhan yahay waxaynu qaadanaynaa fasax 2 bilood aynu qaadanaynaa waxaa la soo noqonayaa 15 bisha August bisha 8aad ilaahay khayr ka dhigo inaguna aynu khayri ku noqono ilaahay khayr inagoo qabnaa iyo horumar ay soo kor celiyo shirkina waynoo xidhan yahay wabilaahi tawfiiq